Hello, welcome back. Cashirkan maanta wuxuu ku saabsanaan doonaa subject verb agreement in muxuu ahaa verbka iyo subjectka ama qofka ficilka sameynaya ama shayga ficilka sameynayo iyo ficilka ay iswaafaqaan number ahaan ay iswaafaqaan haddii uu mid mufrad yahay kan kaletana uu mufrad noqdo tusaale ahaan waxyaaba hore usoo baratay dabcan macalinka waa laga yaabaa in markaad kow luqadda ingiriiska baranaysay in lagu dhahay ama macalinkaaga ingiriiska uu ku dhahay haddii singular subject aad haysato verbkan wuxuu noqonayaa singular sidoo kale sida tusaalaha halkan ka muuqdo the table is black miisku waa madow yahay so table subject the table oo subject ah singular verbkan wuxuu noqonayaa singular is okay so dabcan macalinka marka inuu hore kugu sheega laga yaabaa macallimiinta hore this is macna normal rule waa inta badan dadka muxuu ahaa la baro muxuu ahaa in terms of subject verb agreement within each English sentence haddii uu markaa subject uu noqdo plural sidoo kale verbkina wuxuu noqonayaa plural sida tusaalaha halkan ku cad the tables are black the tables are black the tables are black the tables oo subject waa plural hadda waa badan yahay waxa weeye jamac waxa weeye verbkina wuxuu noqonayaa jamac haddii qaybtii hore markii hore fiiri su-aashaas maxaan wadaa tusaalaha koowaad wuxuu ahaa mufrad allan subjectkiyaa mufrad ahaa marka inta badan ma ahane boqolkiiba 99 sharciga la raaco markii muxuu ahaa arrinta laga hadlayo oo luqadda ingiriiska waxa waaye labadan rule ama labadan shuruud yaa la raacaa laakiin had iyo jeer ma aha ma shaqeeyaan marka qaar waxaa dhacaysa waxyaaba ka yar xogaa yar ku wareerinayo ayaad arkaysaa marka aan aragno bal ila soco marka isku soo noqod wanaagsan waa markale waa sii soconaynaa marka waa tii aan dhahnay labadan rule waa dee qof kasta oo luqadda ingiriiska soo bartay waa la baraa singular subject singular verb and plural subject plural verb mostly laakiin waxaa dhacda marka qaar in ay arrimahaas naftirkooda maaragtay xoogaa ay keenayaan caqabad oo ayna shaqaynaynin markii la isticmaalayo ereyada qaar marka cashirkan waxaan kusoo qaadan doonaa 4 erey oo pronoun oo magacuyaal ah oo inta badan dadka confuse gareeya ereyadana waxa weeyaan waa all most none iyo some markaad isticmaalayso waxa weeyaan exceptional case waaye muxuu ahaa shuruucdii hore aan hore u sheegnay muxuu ahaa ma raacayaan mar waxay isticmaalayaan singular arkaysaa filaarta singular verb ay qaadanayaan markaad isticmaasho marna waxay qaadanayaan plural verb ay qaadanayaan waxaanay ku xiran tahay hadba marxaladda iyo xaaladda qaabka loo isticmaalay ay ku xiran tahay so the context ay ku xiran tahay so these words normally take either singular verb or plural verb and this is determined by the context and the situation under which they are used marka tusaalahaan arkaynaa mostly insha allah waxaan filayaa marka cashirkan markuu aad dhamaysato oo aad si fiican u dhegaysato dhamaystirato in cilirigaas ama muxuu ahaa challengegaas ama waxyaabahaas caqabadaas aad ka gudbi doonto oo aad si fiican aad u fahmi doonto sida loo kala isticmaalo ereydan oo muxuu ahaa mar alle markaad jimlo ku isticmaasho in ay qaadanayaan singular iyo inay qaadanayaan plural verb inaad kala garan doonto cashirkan dhammaadkiisa marka hore u gelaya tusaale ahaan jimladan halkan ku qoran jimladan halkan ku qoran all of the equipment is on sale may noqonaysaa mise waxay noqonaysaa all of the equipment are on sale marka xogaa markaad fiiriso xogaa maskaxdaada inaad yar fikirtay noqonaysaa oo muxuu ahaa aad isdhahdo okay I'm not sure ma hubo inaad isdhahdo all of the equipment is on sale miyaa sax noqonaysa mise all of the equipment are on sale may noqonaysaa xogaa you'll just think you're not sure because ma hubno inay qaadan doonto singular verb iyo inay plural verb qaadan doonto so this is the confusion that I want to clear up today waxyaabahan waay marka waxyaabaha inaan mataqaana insha allah inaan ka gudubno aan rajeynaya cashirkan markaan barano insha allah marka horaan soconayaa tusaalooyinaan marka gelaya tusaalooyin ku saabsan ereyadan annagoo isticmaalayno iyo inay qaadanayaan singular verb iyo plural verb sidii ku qaadanayaan annagoo isticmaalayno all most all those words haddaan kasoo hadalnay so laba ayaan usoo qaatay marka laba waan iskugu soo qaatay in pairs and in this pairs I'm going to read waan akhrin doonaa markaan akhriyo waxaad isku daydaa inaad adigu maankaaga halkan keento waad dhegaysato oo bal jumlooyinkaas markaan qaybta hore aan setka hore labada hore aan akhriyo labada kale aan isla akhriyo sidaas aan akhrin doonaa saas u wadi doonaa marka mana micnayn doono marka hore only reading aan ku sameynayaa waana sax jumlooyinka waa sax mid walba muxuu ahaa verbka uu qaadanayo waa kaa muxuu ahaa waan calaamadeeyey color aan u yeelay marka
adigu bal isku day inaad fahanto un waxa mataqaana faraqa iyo meelaha mataqaana saxda inaad fahanto isku day insha Allah dan kadib waan sharxi doonaa markaa. So the first jumlada ugu horeysa waxaa waye jumladii muxuu ahaa slide-kii hore aan ku aragnay all of the equipment is on sale sax waxaa laga yaabaa some of you inay hadda isleeyihiin all of the equipment is on sale boy on sale sax maxaa dhacay equipment wax badan waay okay fine we're going to look at it waan arki doonaa all of the computers are on sale all of the computers are on sale okay all of the computers are on sale now jumladan let me go to the next one just want to finish fast okay labada la jumla xigta waxa waay some of the advice is useful some of the advice is useful some of the advice is useful some of the ideas are useful some of the ideas are useful marka verbka fiiri verbka just look at the verbka egg okay and have in mind that muxuu ahaa subject verb agreement subject verb agreement what is the subject and what is the verb already waa kala gareeyay waad u jeedaa subjectna dabcan waa dareemi kartaa but I'm going to explain waan sharxi doonaa in the after this labadana hadana xigta labada xigta waxa waay most of the information is true but lakin most of the reports are true okay next none of the jewelry is missing none of the rings are missing marka halkan waxaa ku qoran 8 jumlo oo laba isku raacsan laba kastana waxa waaye hal erey oo kamid ah ereyadii hore aan kusoo sheegay all iyo some iyo most aan isticmaalayna labada hore haddaan ku bilowno all of the equipment is on sale sax weeyaan waxay qaadanaysaa singular verb the reason waxa weeyaan equipment all of the equipment subject hadda jumlada subjectkeeda equipment waxa waaye uncountable nouns waa magac aan tira lahayn oo aan la tirin karin waxaa equipment ay matashaa waxyaabo badan qalab haddii la dhaho qalab markaa dhahdo qalab dee dabcan wax badan waa kala duwan yahay okay laakiin qalabkii haddaan hoos usii galno oon soo qaadano tusaale ahaan computer haddaan soo qaadano computer wax la tirin karo waa 1 2 3 la dhihi karaa so all of the computers are on sale dhammaan computerada waa iib okay all of the computers are on sale xagga horena waxay ahayd all of the equipment is on sale equipment waxa la tirin karin waa because computer ku jira TV ku jira qurno dhinac ku jira so in that case general in English equipment eriga equipment waxa loo consider inuu yahay uncountable mar hadduu yahayna macnaheedu waxa waaye wuxuu qaadanayaa manub subject hadduu noqdo oo uu raaco this wuxuu qaadanayaa is and then next example and add no some of the advice is useful advice talo ma la tirin karaa maya uncountable way so the uncountable subject uncountable uu yahay wuxuu qaatay general advice muxuu ahaa advice ku badan karaa different types of advice jiri karo so the advice is useful lakin some of the ideas are useful sababtaan isu raaciyay labada isugu raaciyay waxa weeyaan midba midka kale uu dhow yahay equipment iyo computers advice iyo ideas waa ujeedaa equipment and computers see the trendka u dhexeeya arag xiriirka ka dhexeeya isku day inaad fahanto advice waana weeyaan ideas basically almost waano laakiin waxay hoos imaanaysaa advice kuma wax yar ka yarta laakiin ayadu waa la tirin karaa fikrada waa la tirin karaa fikirka waa la tirin karaa war intaasoo fikir aan aruurinay we've collected different ideas today and we found 5 of them being very helpful hadaan dhahdo tusaale ilaa dhowr idea ama fikrada maanta nala siiyey laakiin 5 ka mid a ayaa noo qaadmay oon isticmaali doonaa so ideas marka waxay some of the ideas are useful laakiin advice useful is soo qaadanaya wuxuu qaadanaya singular verb most of the information is true information hadaan dhahdo dee xog ama akhbaar iyo waxa dhahdo dee wax guud weeyaan akhbaartu waa kala nooc waa kala duwan tahay okay xogtu way kala duwan tahay kan dhakhtarka laga keenay iyo tan laga keenay muxuu ahaa wasaaradaha laga keenay iyo tan laga keenay bulshada xogtu way kala duwan tahay information kala duwan yahay so reports laakiin haddaan dhahno xoga hoos imaanaysaa eeg it's almost the same they're just the same lakin reports waa la tirin karaa we can get 5 reports we can get 20 reports we can get 2 reports lakin information lewa okay so most of the information is true wuxuu qaadanaya singular plural singular verb because information the subject
here is a collective noun and it's considered to be uncountable, and that's why it takes it. Reports lakin it's different. None of the jewelry is missing. Jewelry marka waxa waaye jewelry waxa weeyaan waxa weeyaan dee waxyaabaha quruxda haweenka gacmaha ay ku xirtaan ha noqdo dhagaha ha noqoto waxyaabaha fargashiga iyo waxaasoo idil weeyaan laakiin way badan yihiin marka is a general name wuxuuna waa uncountable waay marka uncountable you cannot count them laakiin rings waa la tirin karaa waa fargashi dhagaha waa la tirin karaa 5 xabo something like that so waxay noqonayaan waxay qaadanayaan plural verb ay qaadanayaan. So from here what is happening waxa weeyaan halkan waxa halka ka socda hadda waxa weeye erayadan all iyo some iyo most iyo none oo afarta erayan eegayay markaad isticmaasho oo ku combine garayso aad ku qabato macna when you combine them with uncountable noun iyagu waa pronoun weeyaan iyaga haddii marka aad ku isticmaasho uncountable noun as a subject ahaan aad ugu isticmaasho uncountable noun as subject ahaan ugu isticmaasho sida equipment uncountable waaye advice uncountable waaye information uncountable waaye jewelry uncountable waaye uncountable haddaad ku isticmaasho subject ahaan ugu isticmaasho wuxuu qaadanayaa singular verb. That is what is happening now. That's what is really happening with these examples. Laakiin haddii aad la isticmaasho countable nouns haddaad la isticmaasho these words erayadan all some most iyo none haddaad la isticmaasho countable nouns sida computers ideas reports jewelry iyo rings haddaad la isticmaalin not jewelry rings haddaad la isticmaasho wax la tirin karo oo kow laba la dhihi karo haddaad la isticmaasho waxay qaadanayaan plural verb. That is what is happening and I'm sure now everything is clear. I told you from the beginning cashirka markaad ka baxdo si fiican aad fahmi doontaa. Okay, now the next part of this we're going to look at exercise and eegi doonaa ila soco.